kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiba meel walba waad naga daawanaysaan bahda qaranjoog news waxay leedahay meel walba caalamkaad ka joogtaan iyad wanaagsan iideeda kala allaha lagu gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo aan ku horeyno qodobada wararka qaranjoog news wararkan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaada ciida Arafo boqolaal kamid ah shacabka Soomaaliyeed kula dukaday masjidka Shuhada ee madaxtooyada Soomaaliya رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري أيام أنت صلاة عيد كلت كذا مسجد كإسبهايسي إسلام كم مجال مقدشو كم نار روح وكم دعه بلشة كنا القبل كبرادر إذا ما حوق الدلك الصومالية أو القلق قرشة سنكفرية دجارة الشام قبل كشباب ذا حوسه رئيس الوزراء هره الدلك الصومالية مدن علي محمد جيدي أيا كهذا أريما حساسي أو كأذن مقام كقبل كبرادر حرالينta Soomaaliya ayaa fasaxday ugu yaraan 8 qofood oo mas'uuliin ah kuwaas oo ku eedeysanaad dambiyo iskugu jira dil wadareed iyo barakicin dadweyne inta waxay ahaayeen qodobada wararkan ugu door kroon imankana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan markale isku soo laabashaha boon daawade hadii uu yahay channelkayga markii kugu horeysay soo booqato waxaan ka codsanayaa in subscribe ii saarto gomlekan aad furto si uu soo gaaro wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka mahadsan daawade aan ku horeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaada ciida Arafo boqolaal kamid ah shacabka Soomaaliyeed kula dukaday masjidka Shuhada ee magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ummadda muslimiinta ah uga hambaliyay munaasabada ciida Arafo isagoona xujayda sanad kaanis gudanaysa waajibaadka xadka ee ugu bariyay inay Allah ka aqbalo aamaasha suuban madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay is caawiyaan si farxadda ciida ay wada gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa ummadda Soomaaliyeed u rajay in sanadkiisa ay ku gaaraan horumar iyo barwaaqo isku dubni isagoona ku boriyay in ay doorkoodii ka qaataan dib u dhiska dalka iyo la dagaalanka cadawga qoystada ah ee taagan dhibaataynta Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadkaba رئيس الوزراء قيري أو كمان الشعب صلاة عيد كل دكتور مسجد كإسبهايسي كإسلام رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي قيري أيا شالي صلاة عيد كل دكتور مسجد كإسبهايسي كإسلام كم مجال مقدشو كمان روح أو كمدة برشة كنا القبل كبنادر رئيس الوزراء أو صلاة كذب لها دي كمان الشعب صلاة كل دكتور مسجد كإسبهايسي أيا شعب كصومالية وجهم بليه مناسبة مالين تقوات عيد الأضحى يسوون الرجية إن ay ku ciidaan farxad iyo caafimaad gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xildhibaano wasiiro culimo u diin Soomaaliyeed ayaa kamid ahaa mas'uuliyiinta shacabkaasi kula dukaday masjidka Isbahaysiga Islaamka ayagoo hambaliyo ku aadan munaasabadaasi ciida u diro shacabka Soomaaliyeed qayre ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay iscafiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda sidoo kale waxa uu u rajay in sanadkiisa kale ay ku gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo maalintii koowaad ee Ciidul Adha ayaa shalay si weyn loogu dabaaldegay Muqdisho iyo guud ahaanba magaalooyinka kale ee dalka markaana shabeellada hoose ciidamada xoogga oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanada Shaam ee gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ku qaadeen deegaanada Shaam ee dhaca galbeedka inta u dhaxaysa Bariile iyo Awdhegle wararkan qorsheysan ee shalay lagu qaaday argagixisada ayaa jab xooggan lagu geystay maleeshiyaadka Shabab sida warbaahinta Qaranjoog news u sheegay taliyaha ciidamada dhulka General Odawa waxaan howlgalkan qorsheysan ku qaaday deegaanada Shaam ee dhaca galbeedka inta u dhaxaysa Bariile iyo Awdhegle waxaana jab xooggan u gaarsiinay maleeshiyaadka Shabab oo iyaguba u bareeray daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo xoolahooda annaga oo la wareegnay gacan ku haynta deegaankaasi ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa Gumadooska ayaa dhawaanba Shabab kala wareegay degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellada Hoose iyagoo jab xooggan gaarsiiyay argagixisada halkaasina shacabka ku dhibi jiray waxaana ay hadda deegaanadaasi gacanta ku hayo ciidamada Gumadooska gaarka u tababaran markaana Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya mudane Ali Maxamed Geedi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan maqaamka magaalada Muqdisho Geedi ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in xilligu ra'iisul wasaaraha uu ka ah dalka uu ka soo shaqeeyay sidii loo dhisi lahaa maqaamka caasimadda sidoo kale waxa uu sheegay in madaxdii shalay diidneed in la dhiso maqaamka magaalada Muqdisho
ay hadda wadaan dholo xoogan isagoo carabka baabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horeeyay Sharaf Sheekh Axmed kuwii shalay diidanaa maqaamka in ay hadda yiraahdaan waa in la dhisaa maqaamka ma ahan mid sax ayuu yiri Cali Maxamed Geedi oo tilmaamay raggaasi madaxweynihii hore Sharaf Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo hadalkiisa sii wato ayaa ka dalbaday baarlamaanka Soomaaliya inay ka doodaan in la helo matalaadda siyaasadda maqaamka magaalada Muqdisho ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay dowladda Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la dardar geliso qorshaha maqaamka caasimadda xalaalinta Soomaaliya ayaa fasaxday ugu yaraan 8 qofood oo mas'uuliin ah kuwaas oo ku eedeysnaa dambiye isku jira dil wadareedyo iyo barakicin dadweyne dadkaani ayaa dhammaantoodba ah mas'uuliin xilal ka haya maamulka Jubbaland saameyn siyaasadeed mid amni culus ku leh deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka Gado xubnahani ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee maamulkaasi Jubbaland taliyaha ciidamada NISA ee maamulka Jubbaland u qaabilsan gobolka Gado gudoomiyihii hore ee degmada Balad Xawo mas'uuliin ka tirsan qaybta amniga degmada Dolow iyo dhowr qof oo kale liiska dadkani ayaa waxaa loo gudbiyay hay'adaha u dooda xuquuqda bini'aadanimada iyo qaramada midoobay sida ay noo sheegeen mas'uuliin ka tirsan hay'adaha maxalliga ah ee gobolkaasi ka shaqeeya mas'uuliintaasi lagu eedeeyay tacdiidaha ka dhanka ah gobolka Gado ayaa dacwad ka dhan ah lagu furay magaalada Muqdisho markii uu madaxweynaha dalka ka ah Xasan Sheekh Maxamuud balse tan iyo markaasi marnaba ma imaanin maxkamadda iyadoona sidoo kale garsoorkaasi Soomaaliya aysan u yeerin mas'uuliintaasi lagu eedeeyay sarkaal sare ee ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kana tirsan hay'adaha faanoole ee ka shaqeeya gobolka Jubbooyinka ayaa Qaranjoog News u sheegay in xilaalinta Soomaaliya ay fasaxday dadkaani 8 qofood oo ku eedeysnaa dil wadareedyo iyo barakacinta dad shacab ah dilalka ugu badan ayaa ka dhacay gobolka Gado Soomaaliya waxaana ugu sii daran degmooyinka Dolow Balad Xawo Luuq iyo Baardheele halka qaar kalena ay ka dhaceen gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo ee Jubbaland inta ayaa ku soo gabagabeynaa wararkii naga soo gaaray Soomaaliya wararka lamid intaan ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii uu yahay janaalkayga markii kugu horreysay soo boqoto waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto gumla kana furto si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka mahadsanid